Assalaamu calaykum. Waxaa jirta su'aal ay dad badan isweydiinayaan baryihii ugu dambeeyay tan iyo markii uu bilaabmay duulaanka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Haddaba su'aashan ayaa ah in uu Shiinuhu qorsheynayo in uu weeraro jasiiradda Taiwan. Taiwan muddo 50 sano ah waxay doonaysaa inay xorriyad hesho, laakiin weli dunidu ma aysan aqoonsan dabcan sidaan wada ognahay. Haddaba Shiinuhu muxuu ay ku qabsan doonaa uu ku muquurin doonaa barxaddan ku taala badweynta dhexdeeda. waxaa suurtagal ah inay dad badan isweydiinayaan su'aashan. Intaynu ka jawaabin su'aasha, waxaa jirta dhinaca khubarada ku takhasustay aqoonta militariga in ay ka faalloodaan arrimaha ku saabsan in uu xoog ku qabsado Taiwan. Shiinuhu dabcan jasiiradda Taiwan waxay dhisatay ciidan aad u awood badan oo iska caabin kara ciidamada Shiinaha, taas oo sababaysa in xataa Shiinuhu uusan ku dhiiran si degdeg ah inuu ka qabsan karo. Dhinaca kalena waxaa la sheegaa inay maadaama ay ku taalo barxad badweynta dhexdeeda ah inaysan suurtagal ahayn ama macquul aysan ahayn in si dhib yar lagu qabsado, iyadoo la sheego in xataa dhinaca maraakiibta badaha dhexdeeda ay suurtagal tahay inay maraakiibtaasi quusaan, maxaa yeelay waxay ku taalaa goob markaasi ay baduhu ku wareejisan yihiin oo aan badahaas la aqoon xilliga ay kici doonaan oo mar walba aad u kaca, taas oo ku dhiirigelinaysa Shiinaha inuusan ku dhiiran in uu ku qaado duulaan jasiiradda Taiwan. Geesta kalena Shiinuhu waa inuu ka baaraandego diblomaasiyadiisa ku aadan arrinkan, maxaa yeelay waxaan aragnaa ama uu arkaaba Shiinuhu waxa uu wajahaya dalka Ruushka ee ay saaxiibada dhow yihiin. Dalkan markii uu weeraray Ukraine waan ogeyn wixii cunaqabatayn la saaray, taasna Shiinuhu diyaar uma aha, waayo dunida waxa uu la leeyahay macaamil aad u wanaagsan oo dhinaca ganacsiga ah, isaga oo wadamo fara badan ku leh ganacsiyo kala duwan ama markaasi maalgelin fara badan oo dalalka ku samaysta. Waxay taasi dhaawici kartaa calaaqaadka uu la leeyahay dalalka kale sida Afrika, Aasiya iyo wadamada kale ee markaasi adduunka. Laakiin waxaa jirta inuu dhoolatusyo military iyo sidoo kale in ay diyaaradaha Shiinuhu ay dul heehaabaan goobo ka agdhow dalkaas Taiwan. Haddaba Taiwan markii duulaanku ku dhacay dalka Ukraine waxay heegan gelisay ciidamadeeda, maxaa yeelay waxay markaasi sheegtay inay foojigan yihiin oo ay diyaar u yihiin wax walba oo dhaca. Ka baaraandegayaan in ay xoog ku galaan ama ay xoog ku qabsadaan jasiiradda Taiwan. Inkastoo Mareykanku uu sheego inuu si toos ah u difaaci doono Taiwan, haddana waxaa lagu yaqaanaa siyaasadaha aan waxtarka lahayn